Dhacdo la yaab leh oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo ka maqnayd reerkeeda 3 maalin. Ma aysan ogolaan in magaceeda iyo sawirkeeda loo adeegsado baraha bulshada, balse waxay ogolaatay in sheekadeeda ay la wadaagto bulshada si ay gabdhaha kale ugu dhicin dhibaato la mid ah midii ayada ay qabsatay. Gabadhu waxay ka soo baxday gurigooda si ay adeeg ugu soo iibiso magaalada. Waxay soo istaagtay mid ka mid ah isgoysyada ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho si ay halkaasi gaari ugu raacdo. Iyada oo gaari sugaysa ayaa loo joojiyay gaari yar oo nooca raaxada ah. Nin aysan ilaa hadda sixi karin wejigiisa ayaa ku yidhi, "Aan ku sii qaaday halkee rabtaa." Waxay u soo dhaqaaqday dhankii gaariga iyada oo daaqadda u istaagtay ninka si ay ula hadasho. Gabadha markaasi ayaa ugu dambeysay kala garasho iyo doorasho waxa ay rabto. Sida ay sheegtay, waxay noqotay qof wixii loo sheegaba tiraahdo haye. Waxaa la geeyay guri sida ay sheegtay wuxuu ahaa guri cidlo ah oo aan cid kala joogin. Gabadhii waxay bilowday in ay u dhaqanto sida haweeney joogta guri lagu qabo, ninkana ay ula macaamisho sidii inuu yahay saygeeda. Muddo 3 cisho ah ama 3 maalin ah ayay noloshaasi ku jirtay. Muddadaasi waxa ay tiri, "Ma awoodi karin in aan taleefankayga qabto, in aan xiriir la sameeyo ehelkayga. Waxaan ahaa qof ninka wuxuu dhaho oo kaliya yeesha ama maqasha. Ma sixi karin guriga aan joogay halka uu ku yaalay, mana awoodi karin in aan u baxo bannaanka. Waxaan si sax ah wax u kala gartay markii la igu soo dejiyay ex-control Afgooye, weliba kolka aan cagaha dhulka dhigay. Waxaan soo raacay bajaaj. Waxaan dhahay, waxaad i geysaa gurigeena oo ku yaala mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir." Inta aan waddada ku sii jiray waxaa i soo wacay lambaro badan oo reerkayga ah, waxaana garan waayay si aan reerkayga ugu sheego waxa igu dhacay. Waxay igu dhiirigeliyeen dadka qaar inaan sheego. Ugu dambeyntii waan u sheegay reerkayga waxa igu dhacay. Waa ay aamini waayeen, xitaa waxay u qaateen in aan dhintay maadaama aan 3 maalin ay i weysanaayeen. Dhibka jira waxa uu yahay ma aqoonsan karo qofkii waxaas igu sameeyay iyo halka aan ka heli karo. Gabadha reerkeeda waxay bilaabeen in ay isbitaal geeyaan oo la baaro. Nasiib wanaag way caafimaad qabtaa, laakiin maskaxdeeda waxaa ka guuxaya wixii ku dhacay. Ugu dambeyntii waxaa la go'aamiyay in quraan la saaro si ay maskaxdeeda ugu degto. Waxay tiri, "Waxaan gabdhaha uga digayaa in aysan raacin gawaari aysan aqoonin qofka wada." Xaqiiqdii waa dhacdo cajiib ah, weliba xanuun badan, oo aad dareemi karto siday u adag tahay qofkii ay qabsato. Dhacdadani waxaa diyaariyay oo qalinka u qaatay Nasriin Maxamed Ibraahim. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Sheer garay walaal oo gaarsii gabdhaha kale si ay ugu noqoto ayagana mid wacyigelin ah.